koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee reediyo kulmiye fadlan sabskrayb saar janalkan karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi warnimayow bini'aadamka allah karaameeyey muslimkaana sii karaamo badan laakiin falalka dhacaya markaan fiirsho soomaalida bini'aadamka karaamada leh kuma jiraan iyagaas ka qaaday karaamadii warya karaamiyan iyo kala dheer madaasan dad karaamo leh waa walaagi gaalka ayika dhiis suubiye ilaahay basiinka dhaariyey aryaadhaha dad karaamada horta ma sameeyaan gabar masaakiin hoos saqiira inay inya kufsadaan oo faraxumeeyaan oo dilaan weliba jawaan ku soo ridaana iyadoo jarjaran ay soo hordhigaan gurigi reerkeera gefkii ka dhacay gaalkacayo rageystay waa kaa guubaha gefkii ka dhacay gaalkacayo rageystay waa kaa guubaha horta cabdillow inta damiirta laha ka gubanaysa ummadna ilaahay ma dooriyo ilaa iyagu isdooriyaan waxaa kaloo la yidhi ilaahay ha ku doorsho dad baa mooda habaar ducana waa noqotaa marka kuwa falkaa geystay waa doorsan yihiin shayddaan baana doorshay lagana dawoobi maayo inta bulshadu u midoobayso falalka xuxun dadka samaynaya war horta waxaa la yidhi gabadha 7 nin baa fara xumaysay marka waxaan la yaabanahay 7 nin oo isku raacday gabadhaas yar aan afduubanno kadib aan fara xumayno kadib aan jirdilno kadib aan nafta ka goyno indhaha ka bixinno kadib inta jawaan ku ridno aan jarjarno gurigeeda hor dhigno xasbunallahu wa ni'mal wakiil warnimayo waxaa la yidhi dalka Kenya xaafadda Islii gabar yar oo Soomaaliya oo iyadana sidaa la yeelay ayaa taala gaalkacyo laftigeedana gabar kale la laayahay la yidhi shalana waa ogeedeen gabdhihi ayagoo jidka xaqaya la xasuuqay marka dumarkii waxay leeyihiin raggii waa waashay maxaa talaa war waxa falkaa samaynaya rag maahana waa dugaage odayaasha gaalkacyood waxay yiraahdeen maanta kadib ninkii gabar kufsada qabiil loogama xaajoog karo waa in shareecada islaamka la horgeeyaa la mariyo lana joogtaa warnimayow gabyaa ciraaqiyaha hadda kahor markuu arkay dadkiisii oo sidii la raba laga yeelayo wuxuu yidhi maanta waxaa ceeb ugu filan inaan ahay ciraaqi marka soomaaliintii wax garata maanta waxaa ceeb ugu filan inuu soomaali yahay war waxaa la yidhi dulmigu aadanaha waa dabraa waana dumiyaa dabadeedna waa dooriyaa duulkii laasima waxaa la yidhi dad yahow xumaha aad daawataan dunuubtaan laga hor tegin dib baad uga qoomamay dulmigii biiraa dad yahow qumbula duri ou naqdaa waxaa kaloo la yidhi dad ilaahay caasiyey dubbihii ku dhici lahaa wuu ina dul yaallaa warnimiyaw daaleyday dhagansada daddaar maylinka fadaylankii dubishayla goori derbigaasa gaasiyee ka aragaay madila doohay ana dariishada ka fiiriyaay dilowjey dangmaneen anti dareen lahow kaha yaa arsidaan ma isi dhaantiinoo sidaan tale ma ayne war waa ognahayo dulmigu u weynoo lagaa geli waa sagaara la'aanta war qandaraaska sagaarada qadar baa qaadatay ayuu ku eedayaa war madaxweynaha Soomaaliya way waxa qadar aadi shalana Masar ka yimid daraadna Djibouti iyo Bujumbura ka yimid tii ka horeysana Addis Ababa ka yimid waagi Xasan Sheekhna madaxweynuhu wuxuu dhihi jiray safar iyo diyaarad raac badana ninka jid xiran badana bulshada maxaa loo xanibaya aryaadaha madaxweynuhu orod badana ma siib laqaad sida حتى كورا لانكو هسو ما يري انت سروري حقاس سروري اوديغان مها ابتيلا دا سي مها اهد اوديغانيتو اديس لي ما امنو اوديغان لي اديس لي ما امنو اوديغان لي ريركيس ما امنو ورانو هيس كان مغلي جري سي هاغوغاني سو هاغوغاني هروم مرنسيدي هاول كما هارين هبارنا او دير madaxweyne orod badana inta u socda dunida waa la aadaya hadeedan noo gashay maxaa dood uga qabtiin daraad ma sheentihe war nin Cabdi Raad liiraado waxa uu yiri cirifka magaalada adoo jooga hadii musqusha inta ka buuxsanta boosneerka qodo aad maagto askari ku ag taagan aad arkay cirifka kale ee magaalada adoo jooga hadii hal jingad aad
guriga saara maagtana askari ku ag taaganaad arkee cid u soo sheegtayna ma taqaanid marka waxaan la yaabanahay dadka saldhigga agtiisa lagu dilaayo sababtay ciidanku arki waayeen waray dadkan dheeftu waa u xisaabsan tahay laakiin dhib iyo dhiig uma xisaabsana war nin askari ah waxaa la yidhi askari qarnaataa naga hor leexe askari qaramaahii calooshiisu shaqaysta ahay uu yidhi runtiisu howaal meel bayaali hunguri jeeya leere anu waa yaabana ana oo badda halkoo malaay oo weyn ka soo baxsadoo madax soo saarti oo wasiirka maaliyadda beelay war imaadi markaas maxsadhay makaseesi idinka malaaga aad soo bees canshuurtiis waa lagaa rabaa mar lamaad maxasaleeya mataqaana idinka inta jeesa kulaan sawiraan kula gala ma shaqada horta ii saaran markooy anna 100 kiilo culeyskasa madax ii saaran horta beyle guri weyn oo hargeysa ka dhisaa haalayo muga canshuurtan masaakiinta laga qaadaa laga dhisaa mase meel kale wax ka soo galeen odaga war maanta waxaa la yidhi diyaaradaha indiya waxay duqeeyeen baakistaan marka baakistaan indiya kama adkayne maxalqaaciddaa u jebisay wariya annagaba kenya nagama adkaya shabaabaa noo jebiyey aryaadaha ununkuba gabdhaha ma kufsan jirina sharci la'aantaa noo geysa intaa annaba xamar ma joogi lahaanin marka jiddan umar aan waayi yaa arro aniga xamar ma joogi lahayn duurkaya iskaaga laabalaha shabaqay ii garuunkayaan galabka saarala ee shabaabaa ii diiday war lankoata ka hor ma eray inni janoofidkay tabaroo ii diidi ana naftay beera isku farada lahay shabaaba owrooga warnimada hadda ka hor odaya waxaa laga soo sheegay naar ma galeena geeriyahay u nuglaysay warnimayo mucaaradkiiyo muxaafidkuba waxay facebookga wareejinayaan labadii odayaa isku dhacay ee maruna mase waa been horta weji buug warkiisu qabasho ma leh laakiin waxaan la yaabanahay rag waaweyn oo madaxa warka qoraya wallee ka jire walaagii la sheega wallee ka jire wallee ka jire war waxaan la yaabanahay cabdishakuur oo ahaa ragga madaxweynaha ku dhowdhow iyo mahad salaad oo ahaa ragga mucaaradka ku dhowdhow hadda labadii oday qoraallada ku kala taageerayaan war heedhe khilaaf iyo been iyo waraad jeceshihiine waxaan anigu idin leeyahay waxay daawo dhalataa daacadii wax qabataa daandaansi iyo kibir dayaxoodu dhacayaa duullaan la qaadiyo dakanadu idlaataa damac la xakameeyaa dulmi laga adkaadaa dulli laga xoroobaa nabad loo diyaar yahay dadku wada ilaashado marka door la siiyo sharta laga duraantee allow daacad adeegta daacad weligaana ma diidna rabbiyow daacad adeegda allow dulmiga naga suuli waryaada shirka amnigoo la sheegaya maxaa ka soo baxay war saas maahana waa la daba jooga ku dhahana been ha ka sheegin war waa la baareeya ereenna inka been sheegteen dadka waryaa falalka imaandarada way cambaareeyeen dilalkii ugu dambeeyey way ka tacsiyeeyeen waryaa taliyaha boolisku wuxuu yidhi tillaabaan ka qaadayna war aniga wasiirka canshuur iga tagaani dhawriya war taliyaha booliska buruufta dhexdeeda tallaabo u qaadaa miya waryaadaha madaxweynaha fahdaa qadar uga horreeyo amniga sugaaya ma la qaraabtay meel madow ka baxe